waxaan rabnaa wax yar inaan ka xuso dekedan Hobyo waa deked taariikhi ah ama Hobyo waa magaalo taariikhi ah waxa aan wada ognahay la xaqiijiyay qarnigii 18aad Hobyo waxay u adeegaysay service siinaysa ama ganacsi ka socday geeska Afrika iyo bariga dhexe reer galmudug baan hadda ka hor alla qadarin ama dawladihii dalka soo maray oo dhamaantood aan hubno inay ku taamayeen Hobyo in la dhiso sidoo kale maamuladii kala dambeeyay ee soo maray galmudug ay ku taamayeen wali laguma guulaysan laakiin caaway sawir sax ah iyo wada sax la timid Hobyo ama dekeda Hobyo waa meesha ugu dhow dawladaha dariska nahay sida dalka aan dariska nahay ee Ethiopia oo ilaa iyo 120 bilyan ku nooshahay ganacsi iyo xiriirna aan leenahay waa meesha ugu dhow ee aan ku kala faa'iideysan karno wadanka aan dariska nahay sida darteed Hobyo waxay leedahay oo istiraatiiji u tahay Soomaaliya oo dhan gobolka geeska Afrika oo dhan lambarka ugu hooseeya waa galmudug waxay caawacad halkan ka cadaatay dekeda reer galmudug Hobyo ka rabaan inay tahay deked u adeegi karta gobolka waxaan rabnaa sida aan ugu midaysannahay galmudug midacaawa gacanta noogu jirto la isugu taagay dib u dhiska dalka ilaahay idankii sida la wada tilmaamay dib uga noqon mayno sabab dib noo celi kartaa hayna ma jirto insha Allah taala waxaan leenahay meel walba aad joogtaan reer galmudug dalkiina dhista u soo jeesta halka caawa waxaa fadhiya hogaankii ama indhihii ama madaxii reer galmudug oo la dhihi karo Soomaalina waa u yihiin wax kasta oo faa'iido oo galmudug gaartana Soomaali baa gaartay Soomaaliya oo dhan baana ka faa'iideysanaysa hadii la yiraahdo waan rabnaa inaan raadno meel walba joogtaan dadkeena dhiirigelino inaan kalsooni gelino nabad iyo xasilooni mid siyaasadeed mid amni iyo mid bulsho oo dhammaystiran ayaan reer galmudug gaaraynaa waana gaarnay inta ka dhiman oo dhammaystirayna insha Allah waxa lagu wargelinayay ballanqaadyadii lacagtii faraha badneed laakiin markii reer galmudug la fiiriyo aan badnayn reer galmudug dad firfircoon waxna quura hantidoodana wax ku qabsada xawaanna waa uga shaqayn karaan wanaagna waa uga shaqayn karaan caawa wanaag ay uga shaqaynayaan marka waxaa hadda lagu wargeliyay in lacagihii qaybo ka mida lagu yaboohay oo ay soo gaartayba fadhiga soo gaartay waxaan leenahay Professor Shirwac shalayna wuxuu bilaabay inay galmudug isku tashan karto caawana waa cadeeyay talaabadii labaad sidoo kale waxaan u mahad celinayaa Senator Cabdi Axmed Dhuxulow oo markii uu hadlayay ku hal qabsaday
boqor cabdulaahi geedi shadoor oo asna intii kala qaatay oo ay la qaadeen intii kale waxaan ogolahay wixii iscuni jiray oo dhan inaan hal jeeb kooda hayo aysan is cunin war wixii xaguu geeyey ninkii odaga ahaa maxay tahay saaxiibo badanaas leh meel maana geeyna meel fiicanaan geeyey galmudug waxa ugu muhiimsan ay u baahneed waxa weeye xasillooni siyaasadeed waxaa lala maalgeli waayey kaabayaashii dhaqaalaha oo dekadda hobyo ugu muhiimsan tahay waxa dowladihii ballanqaadyada noo sameeyey ay u soo degdegi waayeen oo dibbaco u yimid wax kasta oo maqan waxa ay ku qabsoomi waayeen waxaa kow ka ah mar walba in galmudug ay ahayd meel khilaaf iyo kala qaybsanaan ay ka jirtay sidaa darteed ilaahay fadligiis kala qaybsanaan waa naga dhammaatay dibna ugu noqon mayno soo saas maaha reer galmudug ciddii ganacsi maalgashi khayraad la soo saaro heshiis nagula ahayd na sugaysay waxaan leenahay ku soo dhowaada galmudug xasiloon oo mid ah siyaasad dhaqaale iyo bulsho khilaaf iyo qalalaaso dambe halkaasuu nooga haray waxaan rabaa inaan idhaahdo dekadda haddii ilaa yidhahdo caawa hawsheeda halka lagu galay hobyo shaqada bilowga dekadda waxaa la bilaabayaa sida noo qorshaysan haddii allaha awooddi la ogolaado sanadka cusub intuusan dhalan haddii ilaa yidhahdo meel ba wax noo joogaan meeshay wax noo joogaan baan ku dhisaynaa inta naga dhiman baan ku dhisaynaa intii lagu tashanaa oo ugu weyneedna caawaa la gaaray saa darteed qorshayaashii aan samaynay waana jexeen waktina waa leeyihiin lagu sameeyo qiimayntii ama feasibility study lagu sameeyo laguna bilaabo dekedii waana waqtiga aan sheegnay dekadiina xilligaasay noo bilaabanaysaa dhammaadkuna waa intay la eg tahay iyo sida laga dhigo insha allah halkan dekaddu waa nuuce in la isweydiiya laga yaabaa waxaa qorshaha iyo taladeenu tahay deked sida hore u sheegay freeson leh u adeegi karta gobolka annagoo ku dhisayna meesha ay ku taal iyo muhiimadda ay leedahay dekadda hobyo saasay noqonaysaa insha allah mar labaad iyo mar saddexaadan dhammaan reer galmudug u mahad celinaynaa madaxdii iyo siyaasiyiintii iyo boqorradii sharafta badnaa isugu yimid taladan dib u dhiska galmudug oo dhinac walba leh na si gaar aan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay waa habeen taariikhi ah meelna noogu qoran midnimo wadajir dooli iyo mukulaana iscunina noo ballanaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu